wakhtigu waa mawjado dhexdiisana waana iyo wanjaaf lagu hoobtay iyo warmiyo hootuu wataa dadkuna wada cisiiyo wanaagiyo anfaaciga waajibkuma wada gutaan ha yeeshee wadiiqadiisa barbaartaa weecatee washlaysa bannaanadoo wahiib ha duleeye ee wakhtiga may dugashadaan dantooda miyay wataan dunida waa laga socdee wakhtigu waa badeecad aanad awood u lahayn inaad noloshaada ka lumiso wax kastuu eebba abuuray waxuu leeyahay taariikhu dhacayo wakhtiga la dhasho iyo wakhtiga la dhinto si aad ugu guulaysto oo noloshaada u weynaato qofku wuxuu u baahay inuu ixtiraamo qiimaha wakhtiga inta badan dadka wakhtigooga lumiya weligood ma guulaystaan wax guulana kama gaadhaan nolosha iyo gaadhitaanka hadafka hadda waxaaynu gudbi doonaa qaybtii ugu dambeysay ee barnaamijkeenna oo ah xikmado ku saabsan wakhtiga iyo wakhtiga ahamiyadda uu leeyahay iyo qaabka wakhtigu kaaga saacidayo inaad gaadhid guushaada iyo naruurooyinka iyo waxyaabaha aad ku haminayso oo dhan male inta jeeraad jabtay waxay ku saabsan tahay sidaad u istaagto oo aad hore ugu socoto لا يهم عدد المرات التي فشلت فيها إنما يتعلق الأمر بكيفية وقوفك ومضيك قدما Doesn't matter how many times you have broke down, it is about how you stand and move forward. وقت ku bixi inaad wax akhrido waa aasaaska aqoonte. استثمر وقتك في القراءة لأن قراءتك أساس معرفتك. Take time to read is a foundation of the knowledge. waqtiga iyo asxaabta wanaagsani waa labada shay oo qiimo badan markaad weynaato. كلما تقدمت في العمر زادت عندك أهمية وقتك وأصدقائك الجيدين. Time and good friends are two things that become more valuable the all you got. Positive think. Stay positive. Move forward.